السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سورة 10 استعلا وطنات Microsoft SQL Server 2017 kaasoo aynu ku soo qaadan doono index ka waxa loo isticmaalaa inuu dataadiisa dhaqso u soo saaro. Hadda marka la update gareynayo table index la waxay qaadanaysaa waqti sababtoo index-ka electricity ayaa la update gareynaya marka waxaan isleeyahay doonaa 10 keenan sida loo sameeyo index. Markaynu hadda halkan imaadno aynu soo furno new query database-keena soo doorano. Index-ka hadda marka query ahaan lagu sameeyo waxa la qorayaa create index kadibna index name key kaasoo leenahay index employee kadib waxaan qorinaa ereyga on kadibna waxaan ku qorinaa table key aynu maxay toolay index-kan ku sameeynay kaasoo tpl employee kadibna waxaan qows kaleynaa column-ka aynu ku apply gareynayno index-kan kaasoo department id kadibna sidaas aynu ku execute gareynaa say tahay inuu sameeyay hadaba index-kan inuu sameeysan yahay laba siyaabood labadaba ku karnaa inaynu query qorno iyo maxay toolay waxaan ka soo eegnay graphic-ka oo bilmataadin graphic qorayno halkan tagno kadibna tables-keena soo furno table-ka tpl employee aynu soo furno kadibna halkan index-ka aynu soo furno waxaad arkaysaa inuu ka sameeynaa index employee oo kan oo halkan loogu sameeysan yahay sidoo kale hadda query ahaan wali boogan karaa iyadoo halkan lagu qorayo sp_help index kadibna lagu xigsiinay table-ka laga raadinay index-ka kadibna sidaas aynu ku execute gareynaa f5 index-ka aynu sameeynay hadaba waa kan index employee kaasoo waliba ku apply gareysan column-kii department id-ga ahaa asagana halkan ku xusnay hadaba kan employee id-ga ku xusnay waa primary keyga sababtoo primary keyga laftirkiisu waxa lagu baaraa marka data laga raadinay id-ga ayaa lagu baarayaa kaasoo primary key ah way ku kala duwan yihiin data ku jirta table index-ka hadaba marka la delete gareynayo halkan waa laga delete gareyn karaa oo right click oo karaa kadibna delete waa la dooran karaa sidoo kalena query lagu delete gareyn karaa iyadoo la qorayo dooro index kadibna lagu xigsiinayo table-kii laga delete gareynayo oo tpl employee index-ka magaciisi oo index employee index-kii tumbaranaysa sidaas ayaan ku delete sameeyaa oo hadda halkan refresh u tirno gudahaan oo ka baxaya marka kadibna soo furno index-ka gudahaan waxa dartaan ka baxay index-kii aynu ka sameeyay halkaas ayaynu inoo joogay 10 kaabna ayaynu ku baranay sida index loo sameeyo isla markaana loo hubiyo inuu ku jiro iyo in si loo delete gareeyo. Salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.